بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال waxaad ogtihiin marar badan qofka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaan ku salinayno in dadka qaar ay dhahaan sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed bas ay ku saliyaan aalkiisa xasaskiisa ay ka reebaan arinta ayada ah qalad miya sax miya dawmiya mise waa dawdarro waxaan weydiinaynaa maxamed cali jabarti ashiici alraafidi asabai ayaan weydiinaynaa nala maqla arinta ayada xukunkeedu waa maxay tahay bal nala dhageystaa dadka intooda badan waxay yiraahdaan sallallahu alayhi wasallam oo macnaheedu tahay duco iyo raxmad korkiisa ahaada nabiga laakiin intaasay ku daayaan iyaga oon raacinin aalka rasuulka sallallahu alayhi wasallam laakiin waxaad ogaataan salaada nabiga lagu salinayo iyada oo aan la raacinin ahlul beydka in ay tahay salaad lagu magacaabo batraa ama midii dabada go'oneed salaad daba go'on baa la yiraahdaa okay jabarti waan dhageysanay jabarti laakiin wuxuu yiri dawma aha wuxuu kale yiri salaadaas magaceeda waxa la yiraahdaa salaatul batra salaad daba go'an laakiin xukunka ruuxa sameeyana ma cadeynin saadarteeda waxaan aadeynaa saaxiibkiis shiiciga ah ee la yiraahdo magaciisa abdi shiiciyow ka waranaarta ayada ah maxad ka leedahay waxaan rabnaa xukunka ruuxa ku saliya nabi maxamed kaligiis asagoo ka reebaya aalubeedkiis xukunkiisa noo sheeg muslim muumin munaafiq kaafir magac dusha ka saar ku dhageysano insha Allah kusoo dhawo qofka saliga batra ku saliya oo aalka ka taga xukunkiisu muxuu noqonayaa horta liyo inaan xukun saaro mar raba cidna laakiin hada waxaan isku waafaqsanay rasuulku inuu la tasalluuni salaatul batra warsana kaliya salli kaliya aniga kaliya yahay u sallayana hada wax uu rasuulku yiri ha sameeyna qofka sameeyana darajada uu yar qaadanaya munaafiq bay noqon waa munaafiqa وعبدي وحاد حكمت صاحبك إدريس وكان صاحبك إدريس أو كسلنا يا اللهم صل على محمد بس ما حد حكمتي منافق نمو نردقيستا. السلام عليكم سيد حسين كيف حالك وانكم سلام يا سيدي هذه أدبنكم سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. كتاب كليا مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول جزء كلبي طونات صفحة صدح بقولي لبو إلى صدح بقولي صدح حديث كان نمبر كيسو يهي سيدين وحكوس أرور السند كيسو يهي سيدتان محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله حديث كاس وعليه هي محمد باقر المجلسي وصحيح عيوليه وحكوس أرور حديث كاس إنه كله هي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك أيوليه مركا نبي محمد بس وكسلي الكيسنا وكريبي وحانا دهاي أريتا سمينا يواكما وجعفر الصادق وإمام كيغا مسيني ويان وحكا لو كسو أرور إسلا كتابك حتى أنشيغا يجوز كيسا سيديتي طبعا صفحة دا لو بقى لواتن يسيديت بابك وداع البيت حديث كنمبر كيسو يهيكو علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله حديث كاس سند كيسايا هنا وعقوت الإمام محمد بن باقر المجلسي إنه يا حديث حسن كالصحيح وحكوسو أروري لفظية صلي يا سيغضا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك حديث كأسجنا وحديث صحيحة نبي محمد يا لوسلي كدي صفات كيسا يا لغشيكي ما أنا ما عرفتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام آل كيسي لغو مصلين وحساس سمينا هنا ومعصومكي شيعة ويقانين مقفاء ويقانين إمام كودي ويان إلا هيان وكنت يانا ودديسي أيان هينينا حتى هذا الكود مركب وحان نقنيسا إني أساق يكون حكومة إنه يهي منافق ويهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.